kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena falanqeynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda warfadhi media qodobada aad maanta ku daawan doontaan wararkeena waxaa ugu waaweyn ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan iyo madaxweynaha Mareykanka hadalladii ugu adkaa abid isdhaafsaday iyadoo xiisadda labada dal ay haatan u muuqato mid markaasi meesha ugu xumeed abid maras inta badan qoyska dhaxalka iskale dalkaasi Saudi Arabia haysta ayaa waxa la sheegay in amiirada badankoodu ay dalbadeen in xilka laga qaado isla markaana line-ka boqortooyada ama taajka boqortooyada laga tuuro MPS waxaana arintaasi oo la xooggan oo ka dhan oo ka socda magaalada Riyadh qodobada kale daawadayaal ku maqli doontaan dalka Saudi Arabia waxay ku dhawaaqeen in madaxweynaha dalkaasi Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu ka noqday hadalkiisii ahaa in ay ka dameeyaan dilka Jamal Khashoggi madaxda ugu sarreysa dalka Saudi Arabia qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda warfadhi media kagan caalamka dhan daawadayaal waa 20kii bishii 11aad 2018 waa maalinimo saalisa oo mar kale barnaamijkeeni falanqeynta dunida iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda aan ku bilaabay isla markaana aan ugu horeysiiyay seef la sheegay in lagu dagaalami jiray bartamihii qarnigii 9aad ee taariikhda AT ayaa waxa laga helay dalka Turkiga ayadoo dalka Turkiga uu ka mid yahay dalalka adduunka ugu taariikhda weyn ayaa waxa la soo saaray seeftan oo ay soo saareen saynisyahano u dhashay dalkaasi Turkiga ay ka soo saareen magaalada la yiraahdo Batara ee gobolka ku yaala koonfurta dalkaasi Antalya la yiraahdo ku taal seeftan ayaa la sheegay inay ku dagaalami jireen ciidankii caloosho shaqaystayaasha ahaa ee reer Yurub markaasi uu adeegi jiray ama u khidbay jiray ciidankii iyo waliba boqortooyadii Isenti loo jiray ee awoodda badneed ee qarnigaas markii taariikhda AD ay ahayd 9 muddo haatan laga joogo ku dhawaad 10 qarni ay markaasi isticmaali jireen seefatan ayaa la sheegay in ay noqon doonto mid kamid ah aasaarta waaweyn ee dalkaasi Turkiga uu hantiyo waxaana la sheegay in dhaqankii markaasi jiray uu ahaa in seefta qofka ku hubaysan ama askariga ku hubaysan kolka la dilo lagula aaso oo lagula xabaalo isaga xabaashiisa lagu daro waxaana la sheegay in halkaasi ay ka soo qofeen saynisyahano dalkaasi ee Turkiga ka socda saynisyahanka weyn ee dalkaasi Turkiga ee kamid ah professorada jaamacadda dalkaasi Turkiga ku taal ee leeyahay Akdeniz University oo leeyahay professor Faysullah Sahin ayaa waxa uu sheegay in ay tan mar kale daaha ka rogayso wuxuu ugu yeeray taariikhda duugaysan iyo taariikhda baaxadda leh ee ku duugan ayuu yiri dalkaasi leeyahay Turkiga waxa uu yiri seeftan waxa isticmaali jiray dadkii loo jiray Vikingka ee si kale ama si kale ay dadku ay ugu yaqaaneen ama ay ugu aqoon dhawaayeen ayuu yiri marka la eego taariikhdii xilligaas loo jiray Franchiinta loo jiray wuxuuna sheegay in ay ahaayeen kuwa iyagu dusha ka ilaali jiray oo ahaa ayuu yiri u adeegto caloosho shaqaystayaal askar ah oo ka kala yimid dalalka markaasi bariga Yurub dalka Ruushka iyo waliba dadka darta Ruushka la baxay waagaasi dadka uu cadaana ayay hayeen ayuu yiri oo uu sheegay in ay hayeen European ilaali jiray boqortooyadaasi waxa uu sheegay in asaarta ay helayaan mar walba ay mudan tahay ayuu in la ururiyo isla markaana la muujiyo ayuu yiri taariikhda iyo dadku sida uu u kala sargeeyay kolkaasi dadkan markaasi la yiraahdo markaasi Insentin la yiraahdo ayaa waxa la tuhunsan yahay in ay ayagu ahaayeen dad asalkoodu ay markaasi ay Turki yihiin ama ay Farisiin ay yihiin ayaa taariikhdu sida ay qorayso ay sheegayaan ee markaasi iyo boqolka sanadood ka hor noolaa waxaana la sheegay in dadkaasi ay ahaayeen dad caqiido aaminsan qaarkoodna ay muslimiin ahaayeen qaarkoodna ay haysteen diintii Kirishtaanka waxa ay uu sheegay professorku in ay sii wadi doonaan baaritaan xooggan oo ay ka wadaan wabiga la yiraahdo Santos River la yiraahdo uu sheegay in lagu tuhmayo ayagana inay ku duugan yihiin aasaar lixaad leh boqorkii Romaaniyiinta Alexander loo jiray ayaa taariikhdu markay ahayd 333 BC waxa uu qabsaday magaaladaasi asagoo kaga xog roonaaday ama kaga turturoonaday ciidankii markaasi BC-yiinta waxaase la sheegay in koldam ay soo rogaal celiyeen ciidankaas janankii ciidamadaasi hogaaminayay ee Romaanka ee boqorkaasi soo diray boqor Alexander ayaa waxa la sheegay in ay ayaguna ay jabeen markay taariikhdu ahayd 42 BC halka nagala socotaan waa warfadhi media wararkii ugu dambeeyay iyo warbixinada dhinaca diblomaasiyadda kagan caalamka oo dhan ayaan daawadayaal warar ka keenaayay dalalka Turkiga iyo dalkaasi Ruushkana waxay kol kale ay ku dhawaaqeen inay xoojinayaan tamarta iyo dhinaca waxa la yiri tuumbooyinka qaada gaaska ee dalkaasi Turkiga la sii mariyo ee looga gudbiyo dalalka kale reer Yurub dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay madaxweynahoodu dalka Turkiga madaxweynaha Rajab Tayyip
Tayyip Erdogan oo la kulansan madaxweynaha dalkaasi Russia Vladimir Putin oo ay isugu yimaadeen kulan ka dhacay magaalada Badamadow ku taala ee Leonid Sochi ayaa waxay ku dhawaaqeen in ay sii wadi doonaan ayaa la yiri علاقاتكس إليه كلهم كحوك على مجال إسطنبول أنا هذا دلكس تركيا أيضا هالكس اللي قد هفري تنبوين وين أو دولة دلكس روسيا أي كله أي دولة إن أي صح جن واستعمار عيد دلكس تركيا والعقد بدنا يجونا كفائديا دولة تركيا وحا أي شكتي إن أي سود وين حول قلدا يولي بعلاقات كونكسن دلالك تركيا يدلكس روسيا دحمرية أيضا دولة دلكس تشرمل كويدا وان كده واقعي إن أي تاجرس وقرشها إنتم بوين كجاز ككينيا دلكس تركيا دلكس ككينيا دلكس روسيا أي سومران تركيا استمر كانت تشرمل كلجيو دولة تشرمل كتركيا يدولة روسيا أي علاقات كده تاني إنتي كدمي زي دورشة دي دمه دلكاسي ترملك كذا عضي وقاد أسوأ نكسنانية أيضا غريبة لو شيعي إن حلقة دورشة ضعون أي دلك غير يوروب أي تركيا آدي وعنانتان هل كان جلس عطان وغرفة الميديا يورك يقدم يدنيا يورب حديدين عند المنسيات دي هاتنا باكستان يا أمريكا رئيس وزراء دلك باكستان عمران خان أي وير أفكه علص كقاضي مدحوينها دلكاسي أمريكا دونالد ترامب iyo dowladda Mareykanka asagoo ka jawaabay wareysiga dheer ee dowladda dalkaasi Turkiga dalkaasi Mareykanka madaxweynahooda Mr Trump uu siiyay TV-ga la yiraahdo Fox News ayaa waxa uu markii ugu horeysay madaxweynaha dalkaasi markii labaad ama saddexaad uu ku eedeeyay dowladda dalkaasi Pakistan waa madaxweynaha Mareykanka in ay yihiin wuxuu ugu yeeray tirarka gabaadka argagixisada wuxuuna si gaar ah u eedeeyay in dowladda باكستان سردون كده يملتر كده عوضة بدن أي رالك هايان شوكتانكي إن هوي لسيو هجاميه لدلي دل أورك القاعدة أسامة بلادين لدلي بشي ماي لبدي يكون يقوي توانكي عمران خان أي هذا الكاسي آدي وقعرض ضيس لمركانا وحبرت تويتر كهذا الله تربيلا وقصو قري وشوا بعد عدا مدحوين ترامب وحو يري عمران خان سوى كبلاوي وحوري باكستان وحا أي كويدي تضباطا يشان كن أو روح ayay ku weyday ayuu yiri dagaalka ka dhanka ayuu kooxaha wax qarbada 123 bilyan oo dollarna wuxuu kaga baxay dagaalka argagixisada uu bixiyay wili Mareykanku ama argagixisada ka dhanka ayuu yiri sida daraadeed ayuu wuxuu yiri hal qof oo Pakistaani ah ama sirdoonka Pakistan wax luga kuma lahayn weerarkii September 11 ka dhacay dalkaasi waa September 11 2020 lagu qaaday dalkaasi Mareykanka ayuu waxaanu nahay ayuu yiri dadka kaliya ee sida xoogan uga qayb qaatay dagaalkaasi lagu la jiray ayuu kooxaha xaqrubada abaalka iyagana taas ayuu noqday wuxuu sheegay in Mareykanku lacagta 223 bilyan oo kaliya ka bixiyay 20 bilyan oo kaliya wuxuuna sheegay in dhibaatada dhaqaale ee wadankiisa ka taagan ay tahay dagaalka la geliyay ee fudaydka ayuu ku tilmaamay waxa uu sheegay in ay sida waxa uu ku hadlayo madaxweyne Donald Trump uu yahay wuxuu ugu yeeray wax laga anfariiro isla markaana laga xishoodo bishii May sanadkii 2011 ayaa magaalada Abbottabad ee dalka Pakistan waxa weerar ku qaaday ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalkaasi Mareykanka oo ayagu ogaaday in halkaas uu ku sugan yahay hogaamiyaha al-Qaa'ida Usaama bin Laden dhakhtar la yiraahdo Dr Shakil Afridi ayaa waxa uu markii hore kadib markii shak ku soo baxay waxa uu qaaday olole been abuuraha oo ah olole talaala taasoo ujeedka kaliya laga lahaa ee ahayd in dadka guriga ku jira caruurtooda la damco in la talaalo kadibna waxa uu lagu ogaanayay in DNA-da ama hidisidaha qofka lagu ogaado inuu qofka rasmiga yahay ayuu wuxuu ka qaaday caruurtii awowga uu ahaa ama qaarkood uu dhalay ee guriga ku jiray Usaama bin Laden asagoo iska dhigaya ninkaasi dhakhtarka in uu wado olole markaasi dhinaca markaasi talaalka oo cudurro jadeecada iyo cudurro kale wadanka ka dilaacay sheeka ah intuu suuqa galiyay kadibna Mareykanka oo horey u haystay DNA-da saxda ah ee Usaama bin Laden ayaa isku tijaabiyay labadaasi waxayna taasi cadaysay in markaasi Usaama bin Laden hoyga ku dhaqan yahay si ayaan arinta ka dambeysay kadibna waxa dhacay howlgalkaas oo lagu dilay Usaama bin Laden dahaasay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku eedeeyay dowladda Pakistan iyo dadka reer Pakistan wuxuu yiri dhammaan qof kasta oo Pakistaani uu ogaa in uu Usaama bin Laden joogo Abbottabad way ogaayeen ayuu yiri in uu ku sugnaa guri uun wax ka yar dhowr mayl u jira ayuu yiri ama dhowr markaasi u jira buu kilomitir wax ka yar xero ciidan oo waliba ciidanka militariga ay leeyihiin wuxuu yiri annaga ayaa nala jahwareerinayay laakiin ayagu way ogaayeen waxaana si doqonnimo ah loogu daldalayay lacagtii waan gooyay buu yiri si kastaba ha noqotee hal
$1.3 bilyan baan sanad kasta Pakistan siinayni sabab aan u siino oo damana ama ay jiraysa ayuu hase yeeshee waxa uu Imran Khan oo markaasi isagu 3-4 qoraal barta Twitterka ku soo qoray wuxuu arintaas ku tilmaamay in ay marmarsiyo ka tahay ayuu yiri guul darada ciidamada Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO looga soo dhabarka looga soo saaray dagaalka dalkaas Afghanistan ka soconay wuxuu yiri waxaad geyseen halkaas ciidankii ugu badnaa 140,000 oo askari oo gaashaanbuurta NATO baa jooga 250,000 oo askari oo Afghanistaniyiin ayaa ka dagaalamaya halkaas 1 trilyan oo lacagta dollarka ah ayaad sanad kasta ku qasirtaan dagaalka ka dhanka ayuu yiri Taliban kaliya ee dalkaasi Afghanistan waanad guul dareysateen Taliban maanta ayay ka xoog badan yihiin halkii ay joogeen buu yiri 7-5 sanadood ka hor kadib dagaalkii ayaad ku fashilanteen annaga ayaad marxatan noo tooqaysan ayuu si carale u yiri Mr. Khan ayaa waxa uu caad ku maray in dalkiisu uusan sameeyay doonin wuxuu ugu yeelay gacmo hoorsi dambe wuxuu yiri waxa aanu tarnay iyo sidaan u gacan qabanay yiri ciidamada dalkaasi Mareykanka kolka ay timaado dagaalkan ay ka jireen cid u sameeyo kartaa ma jirto waxaanu idin sameeynay buu nafurnimo wali waxaanu idin sameeynay buu in aanu saanada aad u baahantihiin aad wali aad isticmaashaan buu Karachi oo magaalada xeebta ku taala madakada leh ee dalkaasi wuxuuna yiri wali ma joojintaasi hase yeeshee waxaa muuqata ayuu yiri in ay u muuqato arintiinu mid iska indhatirid xoogan iyo waxaad ka wadaan oo ah ayuu yiri in dawladda dalkaasi Pakistan ay gurgurato ma dhici doonto ayuu yiri Mr. Khan oo markaasi si xoogan uga carooday waraysiga uu qaadayay ninka la yiraahdo Chris Wallace ee inta badan barnaamijka The Fox News ee dalkaasi Mareykanka TV-ga dawladda dalkaasi Mareykanka si weyn u taageero halkan nagala socotaan waa Horfadhi Media iyo wararkii ugu dambeeyay dunida iyo warbixinii dhinaca diblomaasiyadda haatanna senataro iyo siyaasiyiin culus oo dalka Mareykanka ka tirsan ayaa madaxweynaha dalkaasi Mareykanka waxay ku eedeynayaan inuu daahinayo isla markaana lugta jiidayo in la soo bandhigo xogta ay horay warbaahinta Mareykanka iyo waliba inaga lafteenu ayna horay u sii liigareynay ama dabcan loo sii qashay ee ka soo baxday hay'adda sirdoonka dalkaasi Mareykanka CIA madaxda inta badan ka tirsan labada xisbiba ee xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Chen iyo kood muraadiinta ay hatan sida weyn uu talaafeenaya madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa ay ku eedeeyeen Mr. Trump in uu doonayo in uu dambabaso dhiigii Jamal Khashoggi sida daradeedna ilaa iyo hadeerto aan la soo bandhigin xogtii rasmiga ahayd una saxiixin in la sii daayo xogtaasi waxa ay sheegeen in ay aad uga walaacsan yihiin sababta uu madaxweyne Donald Trump uu isku bihinayo isla markaana uu doonayo in uu badbaadiyo wiilka dhalinyarada ah ee la yiraahdo MBS ama Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud senatarada dalkaasi Mareykanka mid kamid ah gaar ahaan senatarka afka dheer ee asagana laga soo doorto gobolka Missouri ee dalkaasi Mareykanka Roy Pant ayaa waxa uu yiri waxaan la kulmay buu qaar kamid ah sirdoonka dalka Mareykanka ee CIA ee gacanta arinta ku hayay waxayna ay sheegeen xog rasmi ah oo la isku haleey karo kolka ay timaado ku lug lahaanshaha arinta MBS ayuu u sheegay TV-ga leeyahay APC wuxuu yiri ma aqaano sababta ilaa iyo hadeerto madaxweynuhu uu dhiiraleeyahay ma aqaano arintu meesha ay ka qasantahay uu sheegay balse wuxuu sheegay in dawladda iyo waliba aqalka sanadka iyo aqalka Congress labadu aysan qaadan doonin wax ka yar ayuu yiri in la ciqaabo kuwii ka dambeeyay ayuu yiri dilkii Jamal Khashoggi waa sida uu sheegay halka nagala socotaan Horfadhi Media wararkii ugu dambeeyay warbixinada diblomaasiyadda tawadasha qiimaha leh qaybta dambe wararka warbixinada diblomaasiyadda Horfadhi Media ha moogaanin